xalqadda shanaad waxay ku bilaabanaysaa Sanjo oo madaxii oo dhan uu casaaday cabitaanka dartiisa, Ohayana wax kale ma aysan samayn karin keliya waxay ku caawisay inuu sariirta uu seexdo. Waxay u jiifeen iyagoo is eegaya, Ohaya waxay si aamusnaan ah u eegtay Sanjo oo horteeda jiifa. Gudaha ayay ka dareentay dambin badan, markaasay si tartiib ah u salaaxday timihiisa iyo dhabankiisa, iyada oo raaligelin ka bixinaysa waxyaabihii ay ku samaysay, isla markaana iska dhigaysa inaysan fahmin dareenkiisa. Laakiin si lama filaan ah ayuu indhaha u kala qaaday, taas oo Ohaya argagax gelisay, waxayna rabtay inay baxsato. Sanjo si adag ayuu gacanteeda u qabtay, si tartiib ahna wuu ugu soo dhawaaday. Markii uu rabay dhabankeeda uu taabto, Ohaya si degdeg ah ayay u fariisatay, qolkiina way ka carartay. Subaxdii xigtay waxay wada fadhiyeen miiska cuntada. Sanjo wuxuu u sheegtay jacaylkiisa, laakiin Ohaya way ka labalabaysay, marar badan ayay ka diiday, mana awoodin inay qirato waxa ay dhab ahaan dareemayso. Sanjo wuxuu xusuusiyey wixii ay u sheegtay habeenkii hore, balse Ohaya way sii beeninaysay waxyaabahaas, iyadoo leh in sababtu tahay inuu aad u sarqaansanaa. Si lama filaan ah ayuu Sanjo u istaagay, gacanteedii ayuuna qabsaday, wuxuun ku dhajiyey wejigiisa. Wuxuu ku yidhi, habeenkii hore sidaan ayaad ii taabatay, si cad baan u xasuustaa. Laakiin Ohaya si adag ayay uga diiday, iyadoo walwalsan ayay isku dayday inay cararto, balse way dhacday. Markii ay dhacaysay, Sanjo ayaa gacmihiisa ku qabtay, wuxuuna weydiiyey sababta ay mar walba uga fogaanayso isaga. Ohaya keliya waxay u sheegtay inay ka xumaatay waxa ay samaysay habeenkii hore, ayna jirto xanuun qalbigeeda ku jira oo aysan sheegi karin, sidaas darteedna ay u diidayso jacaylkiisa. Habeenkaas Sanjo iyo Ohaya waxay wada tageen guriga, halkaas oo ay ku arkeen hooyadiisa. Waxay u timid inay ku dhiirigeliso inuu shukaansi uu aado, xitaa waxay u soo heshay gabdho hodan ah. Sanjo wuxuu u sheegay hooyadiisa inaysan mar dambe arrintaas samaynin, isagoo u sheegay inuu hore uu u jeclaaday qof kale. Wuxuu Ohaya u soo jiiday agtiisa, wuxuuna hooyadiisa u sheegay in gabadha uu jecel yahay ay tahay Ohaya. Hooyadii aad bay ula yaabtay, weligeedna ma aysan filayn in wiilkeedu uu jeclaado Ohaya. Maalin kale markii Sanjo uu guriga yimid, wuxuu maqlay sawaxan badan. Markii uu albaabka furay, aad ayuu u yaabay. Rag iyo dumar badan ayaa ku dhex ciyaarayay guriga iyagoo xiran maaskaro. Muusig aad u dheer ayaa socday, dadkuna way qaylinayeen sida goob caways ah camal. Sanjo si kama ah ayuu u jebiyey koob biyo ah oo haweeney ay siisay, dad badanna way ku soo yaaceen, iyagoo isdhex riixay dadka dhexdooda. Qosol iyo buuq ayaa hareerihiisa ka socday, xaaladiisii nadaafadeedna mar kale way cakirantay. Wuu walwalsanaa, neeftana way ku adkaatay. Wuxuu u cararay qolkiisa si degdeg ahna wuxuu u wacay Ohaya, balse ma aysan ka jawaabin. Sanjo wuxuu noqday mid daalan oo dhididsan, ugu dambayna dhulka ayuu ku dhacay isagoo jiifa. Xilligaas ayay Ohaya ugu dambayn maqashay taleefankeeda oo yeeraya, balse Sanjo hal erey ma uusan oran karin. Ohaya waxay dareentay in wax khaldan ay dhaceen, markaasay si degdeg ah gurigeeda uga soo baxday, iyada oo u ordaysa guriga Sanjo. Markii ay gaartay, aad bay ula yaabtay waxa ay aragtay. Waxay ku qaylisay in qof walba uu baxo, balse muusigu aad buu u dheeray, cidina ma maqlaynin hadalkeeda. Wax kale oo ay samayso ma jirin ee waxay ka bixisay korontadii muusiga, iyada oo ku qaylinaysa in dhammaantood ay baxaan. Markii ay aragtay Sanjo oo dhulka ku miyir beelay, qalbigeedu aad buu u gilgilay, dambina way dareentay. Si taxadar leh ayay dididkii uga masaxday, gacantiisana way qabatay, iyadoo ka raaligelinaysa inay soo daahday. Xilligaas ayay Ohaya si dhab ah u garatay inta ay jeceshahay ninka horteeda yaala. Ma aysan tegin halkii, waxay ku nagaatay sariirtiisa agteeda habeenkii oo dhan. Subaxdii markii Sanjo uu soo toosay, isla markiiba wuu kacay, gurigana wuxuu ka raadiyey Ohaya. Markii ay maqashay sawaxanka, si degdeg ah ayay u soo gashay. Sanjo si adag ayuu har u siiyey Ohaya, wuxuuna u sheegay sida uu uga walwalsanaa, isagoo ka baqayay inay wax ku dhaceen. Wuxuu ku adkaystay in Ohaya aanay xataa hal tallaabo ka tegi karin dhinaciisa, isla markaana ay tahay inay la joogto 24 saacadood. Ugu dambayn Ohaya mar dambe ma aysan ka diidin dalabkiisa, waxayna u ballan qaaday Sanjo inay la joogi doonto 24 saacadood oo buuxda. Sanjo aad ayuu u tabay, indhihiisuna ilmo ayaa soo buuxisay. Si tartiib ah ayuu garka uga qaaday Ohaya, ugu dambayntiina way isku soo dhawaadeen iyagoo faraxsan. Mar dambe isma aysan qarinin, ismana khiyaamin, si daacad ah ayay dareenkooda isu muujiyeen. Garaaca degdega ah ee qalbiyadooda wuxuu ahaa mid aad u qurux badan. Markii Sanjo uu qubays ugu jiray musqusha, Ohaya waxay fadhiisatay albaabka agtiisa iyadoo sugaysa, maadaama ay isagu ay ka qaaday ballan ah inay 24 saacadood ay la joogto. Laakiin 2 saacadood oo qubays ah kadib, Sanjo weli ma uusan soo bixin, Ohayana way caajistay. Waxay ku ciyaartay 2 kabo oo bakayle ah, iyadoo dhagaysanaysa mashiinka dharka oo dhameeyey shaqadiisii. Ohaya way oroday, Sanjona timihiisu weli waa ay qoyan yihiin. Kadib albaabka ayuu furay isagoo raadinaya. Wuxuu u sheegay inay albaabka ilaaliso oo aanay meelna tegin. Isla markii uu xiray albaabka, ayuu mar kale furay si uu u hubiyo inay weli joogto. Ohaya waxay diyaarinaysay wax uu Sanjo cuno, balse si lama filaan ah ayuu u bilaabay inuu kaftamo. Wuxuu ku andacooday inuu aad u tabar daran yahay oo uusan qaadi karin. Ohaya waxay qaado ka buuxisay cunadii, markay afuuftay ayay siisay. Si lama filaan ah ayuu Sanjo iskaga dhigay inuu weli kulul yahay. Iyadoo ka walwalsan, Ohaya ayuu u soo dhawaaday si ay u eegto, balse Sanjo fursadaas ayuu ka faa'iidaystay, isagoo gacmihiisa ku soo jiiday, una sheegay inay meelna tegin. Way is eegi jireen iyagoo faraxsan, balse markii uu rabay inuu u soo dhawaado, mashiinkii nadiifinta ayaa si lama filaan ah u yimid, kuna dhacay kabaha bakaylaha ee Sanjo. Sanjo isagoo kaftamaya ayuu u sheegay inuu yara baneeyo, taas oo Ohaya ka qoslisay. Maalintaas Ohaya waxay rabtay inay booqato hooyadeeda. Sanjo wuu cabaaday isagoo leh, haddii aad ii sheegi lahayd mar hore, si ka habboon ayaan isu diyaarin lahaa. Intii ay jidka ku jireen, Sanjo wuxuu ku dhawaaday inuu ku dhaco ilmo si lama filaan ah uga soo baxay wadada dhexdeeda. Nasiib wanaag, ilmihii waxba ma aysan gaarin, keliya wuu argagaxay. Laakiin dhibku wuxuu ahaa in Sanjo
Sanjo uusan mar dambe kaxayn karin gaariga, markaasay qasab ku noqotay inay raacaan taxi. Isagu waa qof nadaafada aad xasaasi ugu ah, weligiina taxi ma uusan raacin. Marka hore wuxuu darawalkii ka codsaday inuu daaqada dambe uu furo, kadibna wuxuu soo saaray buufin jeermis dile ah isagoo si xoogan ugu buufiyey gaariga gudahiisa. Ugu dambayn ayuu taxiga fuulay isagoo si adag u haysta gacanta Ohaya, halka gaariguna uu si yar u ruxmaayay. Sanjo si kama ah ayuu u taabtay dhabarka kursiga hore ee taxiga, markaas ayuu darawalkii weydiiyey haddii uu meeshaas maalin kasta uu jeermiska ka dilo. Darawalkii oo xanaaqay ayaa ku jawaabay inuu mararka qaar kaliya uu masaxo isagoo isticmaalaya maro nadiif ah. Markii uu Sanjo maqlay maro nadiif ah ayuu si lama filaan ah u naxay, kadibna ku dhacay laabta Ohaya. Arrintaas awgeeda labadoodaba taxigii waa laga dejiyey. Caqabadii xigtay waxay noqotay basraaci. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee Sanjo uu basraaco. Ma uusan haysan lacag jajab ah, markaas ayuu geliyey lacag weyn. Mashiinkii lacagta ayaa bilaabay inuu soo tuuro qadaadiic badan. Maadaama uu aad u neceb yahay wasakhda, wuu diiday inuu qabto birta lagu istaago baska. Beddelkeeda mar walba wuxuu gacanta saari jiray garabka Ohaya. Inkastoo kuraas badan oo bannaan ay hortooda yaaleen, haddana si adag ayuu ugu diiday inuu fariisto. Markii baska uu istaagay, koox dumar ah ayaa soo fuulay. Dhammaantoodna waxay bilaabeen inay ammaanaan quruxda Sanjo. Ohaya iyo Sanjo si degdeg ah ayay darawalkii uga codsadeen inuu albaabka uu furo, kadibna waxay ka carareen sawaxankaas. Ohaya waxay bilaabaysay inay waraaqa u qaybiso dadka waddada maraya, iyadoo rajaynaysa inay hesho markhaatiyaal ka caawin kara kiiska dagaalkii walaalkeeda. Laakiin waddadu aad bay mashquul u ahayd, dadka badankoodna dan kama lahan dhibka qof kale. Markaas ayuu Sanjo soo muuqday isagoo waraaqad ka qaaday dhulka. Wuxuu canaantay Ohaya, u sheegay mar kasta oo ay dhibaato la kulanto inaysan weligeed u sheegin ama caawimaad ka dalban isaga. Shaqaalaha shirkadda ayaa iyaguna gadaal ka yimid, iyagoo sita ubaxyo casaanka ah oo badan. Sanjo wuxuu ku amray inay bilaabaan ficil. Markay waraaqaha u qaybinayeen dadka, qof walba wuxuu helayay ubax. Waxay u sharxayeen dadka codsigooda. Sanjo wuxuu sheegay in tani ay ahayd fikrad uu isticmaalay bilowgii ganacsigiisa, isla markaana ay aad u caawisay. Ohaya waxay daawanaysay Sanjo iyo asxaabtiisa oo si dhab ah ugu dadaalaya arrinta walaalkeeda, qalbigeeduna aad buu u taabtay. Dhammaan waraaqihii waa la qaybiyey, balse weli markhaati lama helin. Mid ka mid ah shaqaalaha ayaa Ohaya ku yidhi, xitaa xidigaha cirka ayaan kuu soo qaban lahayn. Markuu sidaas yidhi ayuu si adag habsiiyey Ohaya, isagoo qirtay inuu jecel yahay. Markii uu taas arkay, Sanjo masayr ayaa ku dhacay. Wuu is-celin waayey. Wuxuu qabtay timaha shaqaalahaas isagoo ku qaylinaya kuna canaananaya. Shaqaalihii oo aan fahmin sababta loogu qaylinayo ayaa aad u wareeray. Markii qof walba uu baxay, Ohaya waxay u sheegtay Sanjo inay iyaguna baxaan. Laakiin Sanjo wuxuu ka codsaday Ohaya inay u ogolaato inay wax yar la sii joogto. Wuxuu garwaaqsaday inta uu maalintaas oo dhan uu ka fikirayay Ohaya. Ohaya waxay u sheegtay inuu wax yar uu soo dhawaado iyadoo si degan u eegaysa. Waxay isku laabatay laabtiisa. Sanjo wuu yaabay isagoo u sheegay dadka kale inay arki karaan. Ohaya waxay kor u eegtay oo ay u sheegtay iyaduna inay u xiistay. Inay sidaas u wada joogaan ayaa ka dhigtay wax walba inay fiicnaadaan. Sanjo wuxuu gacmihiisa kala baxay jeebabka, wuuna habsiiyey Ohaya isagoo u xaqiijinaya in arrinta walaalkeeda si hubaal ah loo xallin doono, sidaas darteedna aysan ka walwalin. Labadooduba waxay isku duubnaayeen qorax dhaca hoostiisa iyagoo dareemaya farxad dhab ah. Markii Sanjo uu Ohaya gurigeeda u sii waday, asxaabteeda ayaa soo wacay iyagoo u sheegay in arrinta walaalkeeda la xallin karo. Ohaya farxad darteed ayay Sanjo u jiiday iyagoo wada ordaya. Waxay ku mahdisay muuqaalkii markhaatiga ahaa ee wakhtigaas la duubay. Walaalkeedii ugu dambayn lama ciqaabin. Markaas ayuu aabbaheeda arkay Sanjo oo la socda gabadhiisa. Sanjo iyo Ohaya waxay aabbaha u sheegeen xiriirkooda. Sanjo oo aad u faraxsan ayaa aabbaha ka codsaday inuu ogolaado inuu daryeelo Ohaya. Laakiin markii uu hadalkaas yiri ayuu dareemay inay wax khaldan yihiin. Isla markiiba ayuu isdarbaaxay, kadibna si edeb leh ayuu u weydiiyey aabbaha fasax uu ku shukaansado Ohaya. Aabbuhu wuxuu si toos ah ugu casuumay Sanjo inuu la cunteeyo ka hor inta uusan bixin. Markii cuntada lagu wada cunayay saxan weyn, Sanjo oo leh dhibaato nadaafadeed ma awoodin inuu wax cuno, muuqaalkiisuna aad buu u qosol badnaa. Aabbaha Ohaya wuxuu farahiisa leefay isagoo raashinka cunaya, wuxuuna Sanjo weydiiyey inuu cabbi karo cabitaanka. Wuxuu buuxiyey koob uu horay uga cabbay, kaas oo dufan ku taalay, kadib ayuu u dhiibay Sanjo. Sanjo wuu gariiray isagoo isku dayaya inuu qaato. Ohaya ayaa degdeg u keentay marmarsiinyo iyadoo u sheegtay in Sanjo uu gaari wadi rabo. Markaas ayuu aabbuhu ka tanaasulay. Kadibna si xamaasad leh ayuu digaag ugu dhiibay Sanjo isagoo ku adkaysanaya inuu cuno. Sanjo wuu gariiray oo ma uusan ku dhiiranin midaas inuu sameeyo, sidaas darteed Ohaya waxay ku tiri Sanjo xasaasiyad ayuu ku qabaa digaaga. Culayska nadaafad jacaylkiisu wuxuu noqday mid labadoodaba ku adag. Markaas ayay Ohaya dibadda ula baxday. Ka hor intuusan Sanjo bixin, wuxuu ku casuumay Ohaya gurigiisa si ay cunto u wada cunaan. Ohaya si xishood leh ayay uga diiday iyadoo u sheegtay inay mar kale samayn doonaan midaas maadaama qoyskeeda ay sugayaan. Waxay u sheegtay Sanjo inuu guriga uu aado, xitaa waxay ugu yeertay magacyo yaab leh. Markuu maqlay Sanjo aad ayuu u farxay. Mar kale ayuu weydiiyey, wuxuuna qabtay gacanteeda isagoo aan rabin inay kala tagaan. Markii uu sii socday ayuu dib u soo jeestay isagoo leh waan ku xiisi doonaa, wuxuuna u sheegay Ohaya inay ku riyooto isaga. Maalintii xigtay, Sanjo iyo Ohaya waxay gacmaha is haysteen iyagoo wada aadaya shaqada. Waxay asxaabta shaqada u sheegeen inay xiriir leeyihiin, shaqaalihiina way la yaabeen arrintaas. Sanjo xitaa si gaar ah ayuu hal shaqaale ugu digay inuusan isku dayin inuu Ohaya uu shukaansado, isagoo ku hanjabay in haddii uusan feejignaan uu gacantiisa jebin doono. Kadib waxay ka wada hadleen halka ay ballan jacaylka u aadi lahaayeen. Sanjo wuxuu soo jeediyey inay guriga aadaan oo ay wax soo cunaan. Laakiin Ohaya waxay u sheegtay maadaama cimiladu ay fiican tahay inay ku wareegaan jardiinka. Markaas
markaas ayay xusuusatay in Sanjo uu aad uga walwalo nadaafadda, sidaas darteed way ka laabatay fikirkaas. Si kastaba ha ahaatee, Sanjo ma rabin inuu niyadda ka jabiyo, wuxuuna si geesinimo leh u yidhi waan aadi karnaa jardiinka. Markii ay gaareen jardiinka, carruur yar oo qurux badan ayaa ku soo orday. Sanjo si degdeg ah ayuu uga dhuuntay Ohaya gadaasheeda. Kadib ayaa soo orday isagoo qaylinaya. Mar kale Sanjo wuxuu isku qariyay gadaasheeda. Markay aragtay sida ay xaaladiisa tahay, Ohaya waxay ku tiri isdeji, waxayna rabtaa inay guriga ku noqdaan si ay cuntada u wada cunaan. Markii Sanjo uu maqalay, farxad ayuu gacanteeda la qabtay iyagoo ordaya. Markii ay guriga gaareen, Ohaya si farxad leh ayay u cuntay cunadii uu Sanjo soo kariyay. Kadib cuntada waxay wada fariisteen fadhiga iyagoo daawanaya filim. Filimka waxaa ku jiray muuqaal laba qof isku soo dhowaanaya. Labadooduba way is eegeen iyagoo xishoonaya oo isku dayaya inay qariyaan dareenkooda. Ohaya si degdeg ah ayay cabitaan u cabtay, balse si lama filaan ah ayay ugu saxatay. Sanjo ayaa ku soo orday, wuxuuna ka tiray cabitaankii afkeeda ka soo daatay. Waxay is eegeen iyagoo aad isugu dhow, jawiguna wuxuu noqday mid jacayl ah. Ohaya way isdejisay, waxayna u sheegtay iyadoo leh waa waqtigii aan gurigayga aadi lahaa, maadaama aabbaheeda iyo walaalkeeda ay ka walwali doonaan. Inkastoo Sanjo uusan rabin inay baxdo, haddana wuu fahmay. Ohaya iyada oo wareersan ayay dibadda u carartay, waxayna istaagtay albaabka hortiisa iyadoo ka fikiraysa inay dib u noqoto oo ay soo macsalaamayso. Si lama filaan ah, Sanjo ayaa albaabka soo furay, wuxuuna arkay in Ohaya ay weli joogto. Iyada si toos ah ayay u weydiisay haddii ay halkaas habeenkii ku hooyan karto. Sanjo ayaa la yaabay, indhahana wuu isku qabtay. Ohaya si geesinimo leh ayay ugu soo dhowaatay, isaguna hab ayuu siiyey. Ugu dambayna waxay wada yeesheen dareen jacayl. Subaxdii, Ohaya waxay xiratay shaarkii Sanjo iyagoo wada fadhiya miiska quraacda. Sanjo si taxadar leh ayuu uga tiray jajab cunto oo ku yaalay geeska afkeeda. Waqtigaas jacaylkooda wuxuu gaaray heer aad u sarreeya. Maadaama Ohaya ay si dhab ah u jeclayd Sanjo, subax kasta goor hore ayay toosi jirtay, waxayna bilaabi jirtay inay qolkeeda nadiifiso. Waxay baratay farsamada Sanjo ee daaqadda loofka lagu sawiro marka la nadiifinayo, waxayna sariirta hoosteeda ka soo saartay boor iyo qashin badan. Aabbaheeda iyo walaalkeeda yar ayaa daawanayay Ohaya oo armaajadeeda kala rogaysa kana shaqaynaysa nadaafadda qolkeeda. Way la yaabeen, mana ay rumaysan karin in gabadha hortooda taagan ay tahay Ohaya. Waxay isweydiinayeen waxa ku dhacay. Dhanka kale, Sanjo oo had iyo jeer nadaafad aad u jecel kana fogaan jiray meelaha dadku ku badan yihiin, ayaa maalintaas lacag badan ku bixiyey inuu kiraysto shineemo dhan si uu balan shukaansi ula aado Ohaya. Maalintaas shineemada cid kale ma aysan joogin. Aad bay u bannaanayd, Ohaya iyo Sanjo oo keliya ayaana filimka daawanayay. Sanjo ayaa tigidhadii qaatay, wuxuuna u soo baxay si uu Ohaya ula kulmo. Waxay tageen meel lagu iibiyo daangada. Sanjo si qarsoodi ah ayuu shaqaalaha ugu sheegay inay wax walba si fiican u diyaariyeen. Markay gaareen meesha, dhammaan shaqaalihii waxay xirnaayeen maaskaro, wax yarna way yaabnaayeen. Qofkii cabitaanka diyaarinayay si fiican uma aqoon mashiinada, balse ugu dambayn wax walba waa la diyaariyey. Sanjo ayaa suulka kor u taagay, isagoo muujinaya inuu shaqaalahaas ku bedelay shaqaalihiisa. Markay gudaha galeen, way fariisteen. Ohaya ayaa markaas ogaatay in shineemadu ay gebi ahaanba maran tahay. Sanjo ayaa ku qasbanaaday inuu been sheego, isagoo sheegay in tigidhadii la sii qaatay la kansalay. Intii ay filimka daawanayeen, Sanjo si qarsoodi ah ayuu u fiirin jiray Ohaya. Markay aragtay sida uu qurux badan yahay, Ohaya ayaa iskeed ugu soo dhowaatay. Shineemada ballaaran dhexdeeda, labadooduba way isku dhoweeyeen, farxadna way ka muuqatay. Markii ay guriga ku sii socdeen, Ohaya waxay u sheegtay Sanjo inuusan u baahnayn inuu wax walba sidaas u adkeeyo. Nadiifinta shineemada oo dhan way adkayd, urka jeermis dilahana iyada aad bay u taqaanay. Sanjo wuxuu ku jawaabay inuusan rabin in Ohaya ay mar walba guriga kula ballanto. Wuxuu dareemayay inuu horeyba shaqo badan ugu diray, laakiin Ohaya arrintaas dan kama laha. Waxay u sheegtay inay aad ugu faraxsan tahay inay Sanjo la joogto. Mar dambe, Ohaya waxay tagtay qolka isbarashada. Waxay si taxadar leh u qorshaysay nolosheeda, waxayna sii waday waxbarashada si ay ugu diyaar garowdo imtixaanada soo socda. Xilligaas ayay fariin ka heshay Sanjo, isagoo ka codsaday inay daaqadda u tagto oo ay wax u soo eegto. Markay daaqadda u dhowaatay, waxay aragtay buufinno badan oo midab binki ah oo si tartiib ah hawada ugu kacaya. Waxaana ku qornaa waan jeclahay Ohaya. Ohaya waxay qaadatay taleefankeeda, waxayna hoos ugu degtay si ay Sanjo u soo aragto. Markan Sanjo ma uusan xiranin galoofis, taasoo muujinaysay in dibkiisii nadaafad xumada uu soo wanaagsanaaday. Labadooduba gacmaha ayay isqabsadeen markay bannaanka u soo baxeen. Ohayana aad bay u faraxday markay aragtay buufinno midabo kala duwan leh oo hortooda yaala. Sanjo wuxuu sheegay inuu doonayo inuu gacmaha u dhaqdo. Ohaya ayaa gacantiisa qaaday, wejigeedana saartay, iyadoo ku ammaantay sida uu wanaagsan yahay. Abaal ahaan waxay siisay erayo macaan badan. Labadii qof ee isjeclaa waxay isugu soo dhowaadeen si aad u degan, wax walbana waxay u ekaayeen kuwa qurux badan. Laakiin markii wax walba u muuqdeen inay si fiican u socdaan, isla maalintaas aabbaha Ohaya iyo walaalkeeda yar ayaa ka soo laabtay xarunta tababarka. Waxaa la ogaaday in inkastoo walaalkeeda uu istifaac sameeyey, haddana waxaa laga joojiyey dugsiga muddo 1 sano ah. Sababta arrintan loo xirayna waxay la xiriirtay xiriirka Ohaya iyo Sanjo. Shirkadda awoowaha Sanjo waxay ahayd cadowgii sababay geerida hooyadii Ohaya. Arrintani waxay ahayd mid lama filaan ah oo aad u xanuun badan. Isla maalintaas, Sanjo wuxuu diyaariyey silsilad qurux badan oo u eg qolay cad, isagoo rabay inuu Ohaya si lama filaan ah ugu hadiyeeyo. Laakiin markuu albaabka furay, wuxuu arkay Ohaya oo qoyan misana taagan albaabka hortiisa. Ohaya ayaa hadashay iyadoo u sheegtay inaysan mar dambe is arki karin, ayna tahay inay kala tagaan. Sanjo aad buu ula yaabay, waxayna dhowaan ahaayeen kuwa aad u faraxsan. Sidee ayay haddaba ugu fikireen inay kala tagaan? Dabcan, Ohaya ayaa lahayd sababteeda. Geerida hooyadeeda waxay si toos ah ula xiriirtay awoowaha Sanjo. Mustaqbalkii ciyaareed ee walaalkeedna wuxuu saameeyey
xiriirkooda. Ma haysanin doorasho kale, sidaas darteed si qalbi jab leh ayay Sanjo uga tagtay. Qof kale hadduu xaaladeeda ku jiri lahaa, isla go'aankan ayuu qaadan lahaa. Maalintaas Sanjo wuxuu u tagay awoowihiisa. Wuxuu weydiiyey sababta uu waayihii hore uu u sameeyey waxyaabo sidaas u xun oo dad kale u waxyeeleeyey. Markii hore Sanjo wuu u adkaysan karay wax walba, balse hadda awoowihiisa wuxuu rabay inuu waxyeeleeyo walaalka yar ee Ohaya. Sanjo wuxuu awoowihiis u sheegay inuusan marnaba ka tegaynin Ohaya, isla markaana uu dagaalami doono ilaa dhammaadka. Awoowihiisa wuxuu uga warramay horumarkii Jonga ee 6 sano ka hor, wuxuuna shaaca ka qaaday in hooyada Ohaya ay ahayd dhibanihii arrintaas. Wuxuu ku adkeeyey Sanjo inuu ka tago Ohaya. Markii Sanjo uu guriga u soo socday, wuxuu ka fikirayay dhammaan wixii dhowaan dhacay. Murugo awgeed ma uusan dareemin gaari xamuul ah oo ka imaanayay hortiisa, taasoo keentay shil gaari. Qolka gurmadka degdega ah, Sanjo ma hubin inuu noolaan doono iyo inuu dhiman doono. Xaaladiisu aad bay u xumayd. Ohaya si degdeg ah ayay u timid isbitaalka. Markay aragtay isagoo dhaawacan oo sariirta yaalla, waxay dareentay dambin iyo is-eedeyn weyn. Waxay qiratay in markii ay tiri waan kala tegaynaa ay been ahayd. Waxay sheegtay sidoo kale nacaybkii ay hore u tilmaantay sidoo kale inuu been ahaa. Laakiin waqtigaas Sanjo waxba ma maqlaynin. Kadib hal toddobaad sugitaan ah, Sanjo ugu dambayn wuu soo toosay. Hooyadii waxay u sheegtay in Ohaya ay maalin walba u iman jirtay, una fadhiday ilaa uu ka soo tooso. Eheladu waxay yiraahdeen waa waqtigii Ohaya ay iman lahayd. Isla markaas Ohaya waxay maqashay aabbaheeda oo leh Sanjo wuu soo toosay. Waxay go'aansatay inaysan mar dambe u tegin. Laakiin Sanjo wuxuu sii joogay qolka isbitaalka hortiisa, isagoo sugaya in Ohaya ay soo muuqato. Ugu dambayn awoowaha Sanjo, kadib markii la qanciyey, wuxuu u tegay qoyska Ohaya si uu raaligelin u bixiyo oo uu cafis u weydiisto. Inkastoo 6 sano ay soo dhaafeen, qoyska Ohaya way ku adkaatay inay cafiyaan, balse waxay ahayd tallaabo yar oo lagu dejinayo xiriirka. 2 sano kadib, Sanjo wuxuu ka soo laabtay Maraykanka. Maalintaas garoonka diyaaradaha, nin aad u wasakhaysan ayaa cabitaan cabaayay, wuuna dhacay. Sanjo ayaa u soo gurmaday, wuxuuna ka caawiyey inuu istaago, xitaa wuxuu uriyey dhalada cabitaanka. Wuxuu qabtay gacantiisa, timihiisana wuu u hagaajiyey, isagoo ku yidhi sidan ayaad ku qurux badan tahay. Waxay u muuqatay in cudurkii nadaafad xumada ee Sanjo uu gebi ahaanba ka bogsaday. Ohaya iyaduna waxay ka shaqaynaysay xafiis, ugu dambaynna waxay noqotay shaqaalihii ay mar walba ku riyoon jirtay. Shaqadan waa tan ay muddo dheer ku haminaysay. Maalin ay shaqada ka soo baxday, iyadoo waddada ka tallaabaysa ayay si lama filaan ah waxay ku sigatay inay dhacdo, balse Sanjo ayaa gadaal ka qabtay. 2 sano kadib, tani waxay ahayd kulankoodii ugu horreeyey. Waxay wada galeen maqaaxi, halkaas oo ay si farxad leh ugu wada hadleen. Ka hor intuusan bixin, Sanjo wuxuu u sheegay Ohaya inuu doonayo inay dib u bilaabaan xiriirkooda. Laakiin dhaawacyadii hore iyo dhibkii ku dhacay walaalkeeda awgiisa, Ohaya weli ma aysan aqbalin. Markii uu guriga ku soo noqday, Sanjo wuxuu la xiriiray shaqaalihiisii hore, wuxuuna qorsheeyey inuu dib u furo shirkaddii nadaafadda. Shaqaalihiisuna waxay ahaayeen kuwo diyaar u ah inay garab istaagaan. Aabbaha Ohaya ugu dambayn wuxuu xaliyey wixii qalbigiisa ka guuxayay. Wuxuu u sheegay Ohaya inuu mar walba u arkayay Sanjo inuu yahay wiil wanaagsan, wuxuuna u sheegay inayna isku eedaynin waxyaabahaas. Wuxuu ku dhiirigeliyey inay si geesinimo leh u raadsato Sanjo. Markii ay heshay ogolaanshaha aabbaheeda iyo walaalkeeda, Ohaya waxay ugu dambayn awooday inay Sanjo u tagto. Iyadoo farxad ka buuxdo ayay waddada ku soo oroday, jacayl awgiisa iyo rabitaanka ay u qabtay laabgelin ay muddo dheer sugaysay. Sanjo isagoo qashin tuuraya kadib markuu shirkadda ka soo baxay, ayuu arkay Ohaya oo xaggiisa u soo ordaya. Isagoo la yaaban waxa dhacay, ayay Ohaya si farxad leh ugu soo booday, habna siisay. Sanjo wuxuu u sheegay inay sugto ilbiriqsi maadaama uu wasakh yahay, balse Ohaya way diiday, waxayna ku tiri waa inaan dib u bilaabnaa xiriirkeena. Markaas ayay wada qaateen isku soo dhawaanshahooda ugu horreeyey muddo kadib. Waxayna si wada jir ah uga gudbeen dhammaan caqabadihii horyaalay, iyagoo ku noolaa nolol farxad leh. Halkaas ayuuna filimku ku dhammaaday. Muuqaalka haddaad ka heshay like saar, haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqato janaalka subscribe dheh, gambaleelka furo si aad u hesho muuqaaladayda xiga. Mahadsanid.